waaya bismillahi raxmaan raxiim maanta barnaamijka qodobada idinku hayo waxaa ka mid ah soddon saacadihii uu qabsaday Donald Trump waxaa uga dhiman 30 saacadood uga dhiman 30 saacadood iyo xabad joojintan hadda la sheegayo maxaa isku soo beegay Donald Trump xabad joojinta miiskiya loo soo saaray asaga wuxuu taagan yahay diyaar ahay waa saxiixaya Iran hal iga soo dhamay shaqadan Iran hal laga soo dhamay marka asaga guulow arkaa Iran inay xabad joojintan oo Turki iyo Masar iyo Pakistan ay soo jeediyeen oo ah 45 maalmood in xabad joojin la sameeyo Hormuz la furo Donald Trump wuxuu rabaa inta deadline habeen dambe aan la gaarin waqtigiisa waqti uu qabtay Iran aysan dhamaanin uu rabaa in Iran ay aqbasho Iran waa diiday maanta marka dabcan ninka odaga ah waa Donald Trump saacadaha soo socdo hadal jeedin oo sameyn doona oo la xiriirto askartii Mareykanka la soo laga soo badbaadiyay Iran uu ka hadli doonaa waayay war waxa afti laga qaaday qodobada xiisa leeyin maanta dhageysta waxa afti laga qaaday dadka reer Spain waxa la yiri adduunka ya dagaal ooga number 1 asin lahaydeen dagaal ooga ma Putin ma Kim Jong Un ninka shuruq ahaa ma muxuu ahaa kii Shiinaha Mr. Trump ليس لسي كل جوده ذاك أفتضل لقى قاعد لحدن وما زاد برسنت واحد هين الدون كوها حلسكوا ودقال أوجه دونالد ترامب يوروب مركا ماشي ستهاجنته يوروب حتى إنجليز كمان دادي أفتضل لقى قاعد 60% يكبضن وهي أمن سنين الدون كمركا اللي صبر برضو ترامب يبطن يا دقال أوجه الدون كان حلسكوا أو قربضات يفاض يحبض يوضع Trump doornay waxa kale oo xusid mudan Soomaali marka fiirisid madaxdii soo martay dalka Mareykanka adig ka soo bilaaw Jimmy Carter ka soo bilaaw saan u soo soco ilaa Reagan ilaa Bush yaashi labada Bush midkii abaha midkii yara ilaa Bill Clinton ilaa ninka la yiraahdo Obama ninka ugu tirada badan ee Soomaaliya gantaalada la dhacay Donald Trump waxa cajiib ah Donald Trump wuxuu iska gadaa madaxweynaha nabadda President of Peace وسوق كسوق على مكت مركو على سجد ويمين وايه وعقل روا أنا قاعدين في الصحة شكل مركب ماشي شوكتو عربتا غير كويت سعودي قدر يبقى حرت الخليجك إيجا سداو أركان حالك هذا الصعود ماذا قاعدين في الصحة تقرنا وأنا نينكا تلفزيون كأي صحافة وين الكويت نينكا عنده كوهاي سكالة CEO أول ونعرس سديتني أفرجير عن بليونير oo saxaafada kuweedo dhan gacanta ku haysto waa idin fasaxaya u arkaa shaydaan dhalay shaydaanka ugu weyn ee halista maanta ku haayo dalka carabta dalka muslimiinta u arkaa ma Trump ma Putin ma Kim Jong Un ma Xi ma Xasan Sheikh arkaa idin fasaxa الآن الحكم في إيران شيطان مريض ما هو ظهر لك لكن حينهيه العالم واي قصة شو بالله شيطانك وين بقى نيكا أوديك هاد عربك في الكويت إيه صحافة عربتك عندك هايو شيطانك وين حالسا عرب وحو أركا إيران وأركا سيدا أفكيس كمغلسين واي دبنا وسوي على قضبك حساسي سعادي وإسقرايا نيكا ترامب حبين دنبو قبصدي wuxuu yiri hadii Iran ay furweyso Mareykanka Hormuz taasoo shuruud uga dhigay kaliya asaga hadii furweyso Mareykanka Hormuz wax furmaraban uma eke meelaha korontada meelaha petrochemicalka idinka duqeynaa taagan meelaha ugu muhiimsan ee wax soo saarka waliba dadka reedka bulshada isticmaalaan dhigeys marka maanta iyadoo waliba deadline la gaarin cid Israa'iil aheeda weerar qaaday waxay ku qaaday Iran laba meel ay weerartay Israa'iil waxay weerareen jaamacadii ugu weyneed oo MIT oo kale MIT jaamacad weyn oo caan ah oo ku yaal Mareykanka technology iyo ku fiican waay mid la mid ah jaamacad ugu weyn jaamacadaha mid ku ugu weyn Iran ayaa la duqeeyay sidoo kale petrochemical xarumo muhiim ah korontada dhalay ayagana waa la duqeeyay إسرائيل طبعا مريكان ولا سعودي وحصاها اللي نيجا أضيع عباس الراج سيدا هذا الكيس وجدان عباس وحو يري
hadda waxaa bilaabatay in iskuuladii la weeraro 1400 sano ka hor wuxuu yidhi nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaato nebi maxamed wuxuu yidhi aqoonta ama cilmiga meel alaali meesha idinla gashaba ka raadsada xataa hama noqoto meel fog masaafo fog ah raadsada ayuu nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku yiri waa sidoo isaga leeyahay reer Iiraan aniga uma malaynayo nebi maxamed inuu Iiraan garanayo wax lo Iiraan ma jirin xogaa marka Abbas Araaji meeshaas dhiiqayro ku kale Pershi inuu dhaha uma malaynayo rasuulka hal gaarsiyo culimada laakiin muhiimadda fariinta waxay tahay in uu ninka odayga noo baasay uu leeyahay iskuuladii anaga burbursan Soomaha anaga wax soo xunay matarayaan hooshena meesha rabna tagana meesha rabna wax ka soo baranayna laakiin hadda waxa bilaawtay in iskuulada la weeraro waaya habeen dama marka deadline markuu dhaco xabad joojintan 45 maalin ee sheegayaan Iiraan goor ay diiday dabcan habeen dama marka waraa jiro Trump waa tuu shalay soo qoray uu lahaa talaado 8 fiidnimo wuxuu ka hadlaa xilliga Mareykanka waa xilliga salaad subaxda ay u soo kici rabaan reer Iiraan waay wixii dhaco iyo waxa xigo time will tell